السلام عليكم. ويليام isweydiisay taleefankaaga waxyaabaha kaa qarsoon ee aad isticmaalin waxyaabaha aad u isticmaali weysay ee lagu soo sameeyey muuqaalkeena waxaan ku xaqaaneynaa program yaris oo ku jira taleefankaaga oo aad isticmaalin kaasoo wax badan kaa caawin doona haddaad isticmaashid ayaan isleeyahay magaciisana waxaa la yidhaahaa Dolby Atmos ka waxyaabaha uu qabto iyo wax loo isticmaalo ayaan muuqaalkeena uga hadlaynaa markii kugu horeysay fadlan channelkeena nagu soo biir oo subscribe saar muuqaalka haddaad ka heshin like saar waan filayaa inuu ku cajibin doono okay aanu galno muuqaalkeena markaa muuqaalkeena markaa haddaynu guda galno waxaanu ka qaadanaynaa laba qaab oo ah in asaga meesha ku jiro iyo wax loo isticmaalo aan ka faalona marka Dolby Atmos ka xageeba ku jira muxuu marka hadii aad arabti inaad ogaatid waxa soo gudisa taleefankaaga control panel ka yani qaybta kore taleefankaaga kadib marka soo gudisid waxa calaamad meelaha inuu ku saaran yahay laga yaabaa adiga marka aanay qaybtan labaad ay ugu jiraan waa kan Dolby Atmos qaybtan geeska optionadan geeska meesha ay ku qoran tahay Dolby Atmos qaybtaas afur waaye marka qaybtani maxaa loo isticmaalaa talo qaybtan waxaa loo isticmaalaa marka aad dhegeysanaysid ama uu ku jiro earphone-kaaga taleefankaaga ku jiro ama earbud ay ku xiran yihiin taleefanka yani aad ku jirtid ama aad ku dhegeysanaysid taleefankaaga option oo ah inaad dhagaha wax gashatid marka labadaas qayb dhegeysan kartaa inaad earphone gashatid inaad earbud aad gashatid aad ku xiriirisid marka wuxuu taraa sida muusikada iyo filmaanta iyo codadka yani inuu labada dhig earphone-ka ama earbud-ka aad dhegeysanaysid isku kala gediyo qaab nashqad qurux badan waxaa la adeegsadaa marka YouTube-ka iyo filmaanta iyo waxyaabo kale aad yani dhegeysanaysid si markaad filmaanta oo kale si wanaagsan ula socotid yani aad xiise u yeelatid iyo marka cod ama dhegeysanaysid marka muuqaalkeena waa halkan ayuu ku egyahay soo tijaabi arrinkan waxyaabay laga dhigo bartna muuqaalkan dadka sheey lagsan nagu soo biir halkan waxaan soo gudbiyaa cashar technology ah mar walba iyo goob walba ma sanid